korintoska koowaad cutubka 14 jacaylka raaca oo weliba hadiyadaha ruuxa ka yimaada aad u doona oo siiba doona inaad wax sii sheegtaan waayo kii af uusan aqoon ku hadlaa lama hadlo dadka wuxuuse la hadlaa ilaah waayo nidna ma garto laakiin ruuxa ayaa waxyaalaha qarsoon kaga dhex hadliya laakiin kii wax sii sheegaa wuxuu dadka kula hadlaa hadallo wax dhisa oo gargaar iyo qalbiqaboojis leh kii af uusan aqoon ku hadlaa wuu isdhisaa laakiin kii wax sii sheegaa wuxuu dhisaa kiniisadda waxaan jeclaan lahaa inaad dhammaantiin afaf ku wada hadashaan laakiin waxaan ka sii jeclaan lahaa inaad wax sii sheegtaan kii afaf ku hadlaa hadduusan fasirin waxaa ka sii weyn kii wax sii sheega si ay kiniisaddu u hesho waxa ay ku dhisanto laakiin hadda walaalayaalow haddaan idiin imaado anigoo afaf ku hadlaya maxaan idiin tari doonaa haddaanan idinkula hadlin muujin ama aqoon ama wax sii sheegid ama wax barid xataa waxyaalo aan naf lahayn markay dhawaaqaan ha ahaadeen ama biibiida ama kataarad haddaanay dhawaaqa kala soocin sidee baa loo kala garanayaa waxa la yeedhiyo ama waxa kataaradda lagaga dhawaajiyo hadduu buunku ku dhawaaqo cod aan la kala garan yaa dagaal isu diyaar garayn doona sidaas oo kalena idinku markaad af ku hadashaan haddaydan ku hadlin hadal la garto sidee baa loo garanayaa waxa lagu hadlayo waayo dabayshaad la hadlaysaan midhaa waxaa dunida jira coodad badan oo kala cayna oo mid aan macno lahayn ma jiro haddaba haddaanan garanaynin macnaha codka waxaan kii hadlaya u ahaan doonaa nin qalaad kan hadlayaana nin qalaad ayuu ii ahaan doonaa sidaas oo kale idinkuna idinkoo ku kulul hadiyadda ruuxa aad u dadaala inaad hadiyado badan u lahaataan kiniisadda dhisniinteeda sidaa daraaddeed kii af ku hadla ilaah ka baryo si uu u fasiro waayo haddaan ilaah af aanan aqoon ku baryo ruuxayga ayaa barya laakiin garashadaydu faa'iide ma le maxaa jira haddaba ruuxa ayaan ilaah ku baryi doonaa laakiin waxaan kaloo isaga ku baryi doonaa garashada ruuxa ayaan ku heesi doonaa oo garashadana waan ku heesi doonaa haddii kale haddaad ruuxa ku ducaysid kii meesha jooga oo aan garanaynin sidee buu u odhan doonaa aamiin markaad mahadnaqaysid hadduusan garanaynin waxaad leedahay si wanaagsan baad u mahadnaqdaa laakiin kan kale ma dhisna waxaan ilaah ugu mahadnaqayaa inaan afaf ku hadlo intaad dhammaantiid ku hadashaan in ka badan laakiin kiniisadda dhexdeeda meeshii aan 10,000 oo eray af kaga hadli lahaa waxaan ka jeclaan lahaa inaan 5 eray garashadayda ku hadlo inaan kuwa kalena wax baro walaalayaalow carruura ka noqonnina xagga maanka xagga xumaantase dhallaan ka ahaada laakiin xagga maanka dad waaweyn ka ahaada waxaa sharciga ku qoran waxaan dadkan kula hadli doonaa afaf qalaad iyo bishimo dad kale oo xataa sidaa daraaddeed ima maqli doonaan ayuu rabbigu leeyahay haddaba afafku calaamo umaha kuwa rumaysta ee waxay calaamo u yihiin kuwa aan rumaysan wax sii sheegudduse calaamo uma aha kuwa aan rumaysan laakiin waxay calaamo u tahay kuwa rumaysta haddaba haddii kiniisadda oo dhammu isu timaaddo oo ay ku wada hadlaan afaf oo haddii dad aan garanaynin ama aan rumaysnayn soo galaan miyaanay odhanaynin waad waalan tihiin laakiin hadday dhammaantood wax sii sheegaan oo u yimaadaan mid aan rumaysnayn ama aan garanaynin isaga waa la wada canaantaa oo waa la wada xukumaa waxyaalaha qarsoon ee qalbigiisa waa la muujiyaa oo taa aawadeed wejigiisu u dhici doonaa oo ilaah ayuu caabudi doonaa isagoo odhanaya runtii ilaah waa idin dhex jooga maxaa jira haddaba walaalayaalow markaad isu timaadaan mid kasta hees sabuura buu leeyahay midna waxbarid buu leeyahay midna muujin buu leeyahay midna af buu leeyahay midna fasiraad buu leeyahay wax walba ha loo sameeyo dhisniin haddii nin uun af ku hadlo ha ahaadeen 2 ama hadday u bataan 3 oo midba markiisa ha hadlo midna ha fasiro laakiin haddaan
mid fasiraa jirin kiniisadda ha ka aamusnaado oo isagu ha la hadlo qudhiisa iyo ilaah nebiyadana 2 ama 3 ha ahaadeen kuwa kalena ha kala xukumeen waxay leeyihiin laakiin haddii wax loo muujiyo mid ag fadhiya kii hore ha aamuso waayo dhammaantiin mid baad wax u sii wada sheegi kartaan si ay dhammaan wax u bartaan oo dhammaan loogu wada gargaaro oo ruuxyada nebiyadu waa ka dambeeyaan nebiyada waayo ilaah ma aha ilaah isku qasnaanta laakiin waa ka nabadda kiniisadaha quduusiinta oo dhan dhexdoodana waa sidaas oo kale dumarku markay kiniisadda joogaan ha aamuseen waayo looma fasixin inay hadlaan laakiin ha dambeeyeen sida uu sharcigu leeyahay hadday doonayaan inay wax bartaan nimankooda ku weyddiiyeen guriga maxaa yeelay waa ku ceeb naag inay kiniisadda dhexdeeda ku hadasho maxaa jira ma idinkay ahaayeen kuwii uu ereygeeda ka soo baxay mise kulligiin buu idiin yimid nin uun hadduu isu maleeyo inuu nebi yahay ama mid ruuxa raaca ha garto waxyaalahaan idiin soo qoray inay yihiin qaynuunka rabbiga nin uuni hadduusan ogayn tan isagana lama yaqaan taa aawadeed walaalayaalow ku dadaala inaad wax sii sheegtaan hana diidina in afaf lagu hadlo laakiin wax walba ha loo sameeyo si habboon oo hagaagsan